Assalaamu calaykum. Soo dhawaada. Ku soo dhawaada muuqaalka maanta. Waa qaybta labaad ee taariikhda waxbarashada Soomaaliland. Qaybtii hore waxaanu ku soo qaadanay xilligii gumaystaha iyo markii uu ugu dambeyn baxayay 1960kii halkay maraysay waxbarashadu. haatan xukuumadihii rayidka ahaa 1964 waxaa la mideeyay manhajkii labadii wadan ee Somaliland British Protectorate iyo Somaliland Italiana oo markaa isku ah hal wadan oo la oran jiray Somali Republic. Somaliland dhexdeeda afafka Carabiga iyo Ingiriisiga ayaa ahaa kuwa wax lagu gudbiyo. waxaa Somaliland la keenay macallimiin laga keenay dhinaca koonfurta oo markaa ku hadli karayay afka Carabiga oo kaliya. waxaa kor loo qaaday tababaradii macallimiintii ka yimid Soomaaliya waxa ka qayb galeen tababaradii macallimiinta loo qabanayay 1968 waxaa la sameeyay habka 4 sano oo dugsiga hoose ah 4 sano oo dugsiga dhexe ah iyo 4 sano oo dugsiga sare ah waxaana laga dhigay 12 sano xilligii waxbarashada iskuulka. dheeraanshaha xilliga iskuulku muu farxad gelinin ardayda. waxaa dhalatay xukuumad cusub oo military ah 1972 waxaa loo bedelay habkii waxbarashada 3-3-4 3 sano oo dugsi hoose ah 3 sano oo dugsi dhexe ah iyo 4 sano oo dugsi sare ah. arday badan ayaa ku soo qulqultay iskuulada hase ahaatee waqtigu muu ahayn mid ku filan ardayda. waxaa buugtii lagu qoray af Soomaali waxaana fududaaday akhriskii iyo qoraalkii. dhanka kale waxaa meesha ka baxay afafkii caalamiga ahaa. waxaa magaaladu soo jiidatay hablo aad u badan oo ka yimid dhulka baadiyaha. 1974 waxaa bilaabmay ololihii farqorista iyo akhriska. dhammaan iskuuladii ayaa la xidhay si loogu guuleysto ololaha. waxaa kobcay wax akhriskii iyo qoraalkii. waxaa la joojiyay dhaqdhaqaaqyadii kale ee waxbarashada. siyaasadii gudaha iyo tababarista ardayda dugsiyada sare iyo jaamacaduhu waxay isu bedeshay tababaro military. waxaa batay tiradii macallimiinta. waxaa horumartay tayadii waxbarashada balse waxa sii dheeraaday xilligii qalin jebinta taasoo niyad jab ku keentay ardayda. 1977 ilaa 1978 waxaa dhacay dagaalkii u dhaxeeyay Soomaaliya iyo Ethiopia. macahadadii tababaristu waxay isu bedeleen goobo lagu qaato tababaro military. 1988kii waxaa dhacay dagaaladii sokeeye gaar ahaana Somaliland oo markaas jabhadii SNM ay ka soo horjeeday taliskii. dhammaan dhismayaashii iyo kaabayaashii bulshada ayaa burburay. dadkuna waxa ay u barakaceen xeryaha qaxoontiga ee dalalka deriska. 1990kii waxaa dhammaaday taliskii militariga ahaa oo gebi ahaanba soo gabagaboobay. Somaliland cusub ayaa dib u dhalatay oo xorriyadeedii dib ula soo laabatay. halkaas ayaynu ku joojinaynaa qaybta maanta. qaybta tan xigta waxaynu kaga hadli doonaa Somaliland cusub iyo halkay waxbarashadii kasii ambaqaaday. haddii aad kanaalka ku cusub tahay subscribe saar si aad joogto noogula socoto gambaleelkana furo. haddii muuqaalka aad ka hesho like saar. wixii talo aad hayso comment noogu gudbi. share garee oo gaarsii dadka kale si ay iyaguna uga faa'iideystaan. waad mahadsan tahay daawade.